dhawaan ayay ahayd markii la dhagax dhigay jaamacadda Qabri Dahar oo kamid ah 11 jaamacadood oo cusub oo lagu soo daray jaamacadihii hore uga sii jiray dalka waxaana muddo 2 sanadood gudahood lagu dhameystiray dhismaha iyo qaybaha kala duwan ee jaamacadda waxaana waqti xaadirkan suurtagal noqotay in jaamacadda Qabri Dahar xadhiga laga jaro ayna qaabisho dufcadii ugu horeysay ee ku soo xaroota jaamacadda Qabri Dahar waxaana xadhiga si wada jira uga jaray madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamed Umar wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia Dr. Telaye Gete iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia ee dhinaca waxbarashada sare Dr. Samuel Kifle haddaba xafladan xadhiga laga jiray jaamacadda Qabri Dahar ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamed Umar wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia Dr. Telaye Gete wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia Dr. Samuel Kifle madaxweynaha jaamacadda Qabri Dahar Dr. Yusuf Maxamed odayaal dhaqameedka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Qabri Dahar waxaana ugu horeyn lagu dahfuray munaasabadan xadhig jarka jaamacadda Qabri Dahar heesta calanka qaranka inta kadib waxa khudbad muhiim ah ka soo jeediyay madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamed Umar oo tilmaamay ahamiyadda iyo faa'iidada jaamacadda Qabri Dahar ay u leedahay shacabka dalka iyo deegaankaba gaar ahaan shacabka gobolka Qoraxay iyo gobolada ku xeeran ee deegaanka isagoo tilmaamay in jaamacadda Qabri Dahar ay tahay horumar cusub oo soo kordhay bulshada deegaanka Dr. Telaye Gete የፌዴራል ትምህርት ሚኒስትር የተከበሩ ዶክተር ሳሙኤል ክፍለ ክንዴ የፌዴራል ትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ የትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች የአካባቢ ማህበረሰብ የተከበራችሁ የሃይማኖት መሪዎች የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲው በተለያየ እርከን ላይ የምትገኙ አመራሮች መምህራን ሰራተኞች ውድ ከተለያየ ሀገራችን ክፍሎች የመጣችሁ የቀብሪ ዳህር ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዙር ተማሪዎችና የኢትዮጵያ ሕዝብ ልጆች የተከበራችሁ በዚህ ታሪካዊ በዓል ላይ ተካፋይ የሆናችሁ እንግዶች እንኳን ወደ ምስራቋ የመቻቻልና የእንግዳ ተቀባይ ወደ ሆነው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልላዊ መንግስት ታሪካዊ ከተማ ቀብሪ ዳህር በሰላም መጣችሁ wasiirka wasaaradda waxbarashada ee sharafta leh Dr. Telaye Gete wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dhinaca tacliinta sare Dr. Samuel Kifle odayaal dhaqameedka sharafta leh shacabweynaha sharafta leh علماء الدين كشرفت له قيبها كلا دون إيه جامنتا يشقالها جامعة قبر دهر أرضية قيبه هذا كلا دون الدلك إن إثيوبيا كلا يمدي جامعة قبر دهر مرت شرفتها كلا حفلة تاريخي جاه أحد كترك جامعة قبر دهر كسو قيب جلي وحن ليه هي بجد حفلة تاريخي جاه جامعة قبر دهر كذا عيس مجال بري إثيوبيا مرت سورك يسود وين تكو عم بحذي إيه قبر دهر عاد نبض كتير معدن ودي يزاري يمرك بعال تدامج يزارون كان لينيا لسومالي كل النوارج ليو كانت
martida kala duwan ee sharafta leh xafladan ka soo qayb gashay marweyn iyo mudanayaal xafladan xalika jar ku dhamaan shacabka Soomaalida Itoobiya waxay noo tahay maalin gaara wadankeena Itoobiya wixii ka dambeeyay xilligii maamulkii kaliya taliskii macangagaha waxaan ku talaabsanay horumar laxaad leh oo aan kala gool ahayn wuxuuna isbedelkan laxaad kale ee dalkeenu keenay inaan 26 sano ku soconno horumar xawli ah oo dhinac walba taabanaya haddaba horumarka wadankeena ka hana qaaday oo aan horumar xawli ah kaliya ahayn ee ah horumar cadaalad iyo sinaan ku salaysan isla markaana qaybaha kala duwan ee shacabka wadanka looga faa'iideeyay dhanka kale xukuumadii hore ee dalka ka soo talin jiray wadanka kameena hirgelinin jaamacado tacliin sare leh oo dhigma tirada shacabka dalka xaaladan oo dhanna waxa la bedelay maalintii dhar gidii la riday maalintii ku xigtay leelaw qabto turgum baalow matan ፊደል የቆጠረ ሰው ማግኘት የማይቻልበት በነበረው አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር በሆነው ክልላችን እንሆ ሁለተኛው ዩኒቨርሲቲ ተገንብቶ ተማሪዎችን ለመቀበል በቅቷል። ይህ አንዱ የህገ መንግስታችንና እየተከተልነው ያለው የፌደራል ስርዓት ፍሬ ነው። ዩኒቨርሲቲው እዚህ በመገንባት የከፍተኛ ትምህርትን ለክልላችን ነዋሪዎች ለበለጠ ተደራሽነት የሚያደርግና በአገሪቱ ላይ እየተመዘገበ ያለው የትምህርት ልማት ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ያደርጋል። shacabka xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqata beeraleyda ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo wax kale iska daayay aan xilliyadii hore xaraf iyo tiro midna wax ku qori jirin ayaa maanta fursad u helay in jaamacaddii labada ee deegaankooda looga dhiso isla markaana ay jaamacaddu ardadii ugu horreysay qaabilayso hawlahan oo dhan waa midhaha iyo natiijadii dastuurkeena iyo nidaamkeena federalismka waxayna jaamacaddu deegaankeena u sahlaysaa in la gaarsiiyo tacliinta sare isla markaana barnaamijyada horumarinta waxbarashada ee dalka si cadaalad ah looga faa'iideeyo bulshada deegaanka የሚሰጣችሁን ትምህርት በአግባቡ ተከታትላችሁ አገራችን የምትፈልገውን በልማት ዘርፍ የሚፈልገውን የተማረ ሰው ኃይል ፍላጎት ለማበርከት በርትታችሁ ተማሩ። አሁንም በድጋሚ የክልሉ መንግስት በማንኛውም ዘርፍ ከጎናችሁ እንደሆነ በድጋሚ ያረጋግጣለሁ። ardada qaaliga si uu wadankeenu u gaadho yoolka cududa wax baratay oo ka qayb qaata horumarka dalka waa inaad tacliinta si habboon u qaadataan waxaan mar labaad idin xaqiijinayaa inuu shacabka deegaanku garabkiina yahay sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Tilaye Geete oo munaasabadan ka hadlay ayaa xusay faa'iidada ay jaamacaddani u leedahay deegaanka isagoo sidoo kalena cadeeyay in jaamacadihii kale ee ay isku xilliga ahaayeen ay dib u dhaceen muddo 5 bilood oo aan wali lagu soo xiroonin isla markaana aan la filaynin waqtigan in xadhiga laga jaro balse in jaamacadda Qabridahar xadhiga laga jaro ay ku timiday dadaalka xukuumadda deegaanka iyo ka go'naanshaha ay leeyihiin hogaaminta xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ይህ ዛሬ ተመርቆ በይፋ ስራውን የሚጀምረው የቀብሪዳሃር ዩኒቨርሲቲም የመንግስትን የከፍተኛ ትምህርት ፍትሃዊ አቅርቦት በማረጋገጥ ለአካባቢው ማህበረሰብ ችግር ፈቺ ጥናትና ምርምሮችን በማካሄድ የሀገሪቱን በከፍተኛ ደረጃ የሰለጠነ የባለሙያ ፍላጎት የማርካት ግብና አቅጣጫ ተከትሎ እየተገነባ ተቋም ነው። በመሆኑም በሀገር አቀፍ ሚናው በተጨማሪ ለአካባቢው ስነ ምህዳር ለህብረተሰቡ እምቅ ሀብቱን መሰረት በማድረግ ድጋፍ በማድረግ የክልሉንና የቀብሪዳሃርና የአካባቢውን ልማትና እድገት በማነቃቃት ከፍተኛ ድርሻ ይኖረዋል። jaamacaddan Qabridahar ee maanta xadhiga laga jaray isla markaana adeegeeda barisbarasho bilaabaysa ayaa ah mid xaqiijinaysa nidaamka cadaaladeed ee gaarsiinta adeega waxbarasho ee dawladda iyadoo sidoo kalena shacabka deegaankan uga faa'iideyn doonta xagga soo saarista cilmi baadhisyo iyo daraasado kala duwan oo furdaaminaya dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda iyadoo sidoo kalena dalkeena u soo saari doonta cududad waxbartay isla markaana dabooli doonta baahida uu dalku u qabo aqoon-yahano ku gaashaaman cilmi iyo xirfad oo ah ujeedooyinka loo aasaasay jaamacadda ውድ ተማሪዎች ይህ አካባቢ የጸረ ዲሞክራሲ ስርዓት በነገሰበት ሰዓት በአጼዎች ስርዓት የወታደር ጦር ማከማቻ ቦታ ነበር። አሁን የዩኒቨርሲቲ ማዕከል ነው። አሁን የምርምር ማዕከል ነው። አሁን የመጣችሁት የተከማቸ ጦር የምታዩበት ቦታ አይደለም። አሁን የመጣችሁበት ቦታ ውሃ እንዴት ተገድቦ ከሐረርጌና ከባሌ ከሰሜን ከደጋማው ተራራዎች የሚመጣውን የውሃ ሀብት አሰባስቦ እንዴት ልማት እንደሚፋጠን የምታዩበት የልማት ቦታ ነው የመጣችሁት።
ardaydeena qaaliga ah goobtani waa mid waqtiyadii hore ee ay dalka ka talin jireen nidaamyadii lidka ku ahaa dimuqraadiyadda ay u adeegsan jireen xeryaha ciidamada iyo goob ay ku urursadaan hubka balse waqtigan waxay noqotay xarun jaamacadeed waxay noqotay xarunta cilmi baadhista imika halkan aad timaadeen ma aha meel aad ku arkaysaan xeryaha ciidamada balse waa mid aad ku arki doontaan oo aad ku baran doontaan qaabka biyaha ka imanaya buuraleyda biyo xidheenno loogu sameeyo oo khayraadka biyaha ee la haysto loo ururiyo islamarkaana horumarka looga faa'iidaysanayo waxaana timaadeen deegaan horumarineed 11 ዩኒቨርሲቲ ይሄ አሁን አራተኛችን ነው ስንመርቅ በትምህርት ሚኒስቴር ግምገማ በዚህ ዓመት ላይ ደርስ ይችላል ተብሎ ከ11 ሲገመገም የነበረው የቀብሪ ዳህር ዩኒቨርሲቲ ነው ምክንያቱም በርካታ የግብአት ችግሮች ነበሩ ነገር ግን የክልሉ መንግስት ያሉትን የግብአት ችግሮች በሙሉ ዩኒቨርሲቲው የምታስጀምሩት ከሆነ ገንዘብ ካለ ተሰጡናላችሁ ከሌለ ግን እኛ እናሟላዋለን ብሎ አውሮፕላን ማረፊያ በራሱ ዲዛይን እና ወጪ አውጥቶ ያስወጣ መገንባት ልምድ ያለው የክልሉ መንግስት በርካታ መሰረተ ልማትን አሟልቶ መጨረሻ ይሆናል የተባለው ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ተማሪዎችን እንዲቀበል ስላደረገ የክልሉ መንግስት እናመሰግናለን 12 jaamacadood ee dhismahooda la waday jaamacadan qabri dahar waa jaamacadii afaraad ee aan xariga ka jarnay qiimeyntii ay wasaaradda waxbarashadu samaysay waxay jaamacadda qabri dahar kamid ahayd jaamacadii la lahaa lagama gaarsiin karo sanadkan iyaga oo sababna uga dhigayay dhibaatooyinka xagga gashiyada kala duwan ee loo baahnaa ee jiray balse go'aanka geesinimada leh ee ay qaateen madaxda ugu sareysa xukuumadda deegaanka oo ahaa in haddii ay dowladda federaalku bilaabayso dhismaha loo dhammaystirayo dhammaanba gashiyada loo baahan yahay oo dhan wixii dhiman ah ay xukuumadda deegaanku buuxinayso ayaa waxay deegaanku oo horay khibrad ugu lahayd oo awoodeeda iyo dizaynkeeda ku hirgelisay gegada diyaaradaha casriga ah ee magaalada qabri dahar ay jaamacadanna xukuumaddu u dhammaystirtay dhammaan qalabkii iyo gashiyadii loo baahnaa oo dhan arrintaasna ay keentay in jaamacadda qabri dahar oo lalahaa way dambaysaa ay ugu horrayso jaamacadii ay isku wakhtiga ahaayeen islamarkaana ardaydana ay ugu hor qaabisho sidaa awgeedna xukuumadda deegaanka oo hormuud u yahay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar aad ayaan uga mahad celinaynaa dhanka kale waxaa isaguna ka hadlay madaxweynaha jaamacadda qabri dahar Dr. Yuusuf Maxamed oo tilmaamay in dhismaha jaamacadda qabri dahar ay ku baxday lacag dhan 740 milyan oo bir waqti xaadirkana jaamacadda qabri dahar ay wax ka baranayaan dufcadii ugu horeeyay oo dhan 1500 oo arday oo ka kala yimid deegaanada dalkan Itoobiya si dheerana u soo dhaweeyeen bulshada magaalada qabri dahar oo soo dhaweyn ku caan baxday ክብራን እና ክብራት ቀብሪ ዳህር ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛው የሀገራችን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ፍሬ ሲሆን በቀን ጥቅምት 24 2008 ዓመተ ምህረት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዩኒቨርሲቲ ሆኖ እንዲቋቋም ተወስኖ ሚያዝያ 1 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት በቀብሪ ዳህር ከተማ አስተዳደር በተሰጠው 325 ሄክታር መሬት እንዲገነባ በክቡር የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በደማቅ ስነ ስርዓት በቆራይ ዞን ቀብሪ ዳህር ከተማ መሰረት ድንጋይ መጣሉ ይታወሳል። እዚህ ጋር ለከተማው አስተዳደርና ማህበረሰብ መሬቱን ያለምንም ካሳ ክፍያ ለዩኒቨርሲቲያችን ግንባታ ስለሰጡን ላመሰግናቸው እንዲፈቀድልኝ marweyn iyo mudanayaal jaamacadda qabri dahar waxa ay ka mid tahay midhaha wejiga labaad ee qorshaha kobaca dhaqaalaha ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya iyadoo 24 bisha Diqamtii ee sanadkii 2008 ay golaha wasiirada jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya ansixiyeen in qabri dahar jaamacadan laga dhiso ayaa kadib markii ay maamulka magaalada qabri dahar jaamacadda ay siiyeen dhul gaadhaya 325 hektar ayuu koodi bisha Miyaziya ee 2008 uu dhagax dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya mudane Dhamaqe Mukenen haddaba waxaan aad ugu mahad celinayaa shacabka magaalada qabri dahar ee dhulka jaamacadda iyadoon magdhow la siinin bilaashka nagu siiyay dhanka kale Suldaan Cabdimaalik Suldaan Maxamuud Haybe oo kamid ah salaadiinta gobolka Qorraxay ayaa ka warbixiyay soo dhaweynta wanaagsan ay leeyihiin shacabka magaalada qabri dahar iyo inay aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweynayaan ardayda iyo hirgelinta jaamacadda qabri dahar wadankan aynu hadda maanta ku noolahay ee gobolkan kada ah dhibaatooyin fara badan ayuu soo maray iyadoo ay taasi jirto xagga tacliinta iyo dhan walba iyo xagga nabadgelyadaba dhibaatooyin aad u fara badan waqtiyadii hore ay jireen hadda maanta aan ku naaloonayno horumarkan iyo tacliintan iyo jaamacadan aan waqtigeeda taaganahay waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha ka shaqeeyay barnaamijkaas wasiirku u mahadnaqay ee wadanka nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa iyo sharaftiisa kor loo qaaday iyo guud ahaan deegaankeenaba inaan maanta ka soo qayb galno
oon aan ka qayb qaadano jaamacaddii qabri dahar furitaankeedii dhammaan ardaydana waxaan ku guwaabinaynaa inaad joogtaan waddankiinni iyo dalkiinni sidaasaan ku soo dhaweynaa waana mahadsantii waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay culummada diimaha kala duwan oo si weyn u soo dhoweeyey hirgelinta iyo weliba xadhig jarka jaamacadda qabri dahare jaamacadda la inoo furay waa farxad mahadaad u ballaaran leh oo inaan soo koobi karin mahadaana ilaah waa iskale iyo ciddii ka soo shaqaysay hoos iyo korba intaba intaa kadib ardayda waxaan leeyahay ku soo dhowaada jaamacadda ku soo dhowaada gobolka ku soo dhowaada waxbarashada ku soo dhowaada nabadgelyo ku soo dhowaada intaba ayaan idin leeyahay intaa kadib waxaan u ducaynaynaa madaxdii arrintan soo abaabushay ee salka u dhigtay ayaan u ducaynaynaa inuu ilaahay korka yeelo cimrigooda raajiyo kuwii dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda afcaan allahu ka yeelo jaamacadda qabri dahar ayaa noqonaysa jaamacaddii saddexaad ee xadhigga laga jaro 11 jaamacadood ee cusbaa ee lagu soo daray jaamacadihii hore u sii jiray halka 8 kalena weli ay dhiman yihiin oo weli aan dhismahooda la gabagabaynin ugu dambayntiina waxaa halkaasi lagu abaalmariyey xafiisyada heer deegaan xafiisyada heer federaal iyo shirkadaha gaarka ah ee sida hagar la'aanta uga shaqeeyey dhismaha jaamacadda muddo koobanna lagu soo gabagabeeyo isla markaana maanta xadhigga laga jaro